maanta waa maalinta caalamiga ee tubaakada. hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in sanadkan diradda la saari doono sidii lagu dhabar adeegi lahaa in dadka tubaakada isticmaalaha isaga joojin lahaayeen laguna dhiirigeliyo. qiyaas ahaan 8 milyan oo qof ayaa sanadkii u geeriyoota tubaakada. 10% ka mid ahna waa dad agtooda lagu cabo oo sidaas qiiqa iyana ku qaata. haddaba heer intee la-eg ayay tubaakadu saameyn ku leedahay bulshada Soomaaliyeed? waxaa qadka magaalada Muqdisho toos ugu jira Dr. Usaama Cabdi Cali oo ah khabiir dhanka maamulka nidaamka caafimaadka. Dr. Usaama, soo dhawow. marka hore waxaad naga siisaa guud ahaan sawir si saameynta caafimaad ay tubaakadu leedahay. aad iyo aad u mahadsantahay Cusmaan. maanta ay ku beegan tahay taariikhda 31 May. adduunyadu waxay u dabaaldegaysaa maalinta ka tagista ama joojinta tubaakada. sanadkan mawduuca ama mataqaanaa xogta yar ee la qaatay ee lagu fuulinayo xanuunkan ayaa ama tubaakada ayaa ah in jooji sida ugu dhaqsiyaha badan ama xoog u saar inaad joojiso tubaakada. isticmaalka tubaakada waxaa ka dhasha xanuuno fara badan oo ay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca neef mareenka, xanuunada dhiigkarka iyo xanuunada kale ee raaga ayuu kor u sii qaadaa. sanadkiiba 8 milyan wax ku dhow ayaa la sheegaa wadada inay u dhintaan wax la xiriiro cabista tubaakada noocyadeeda kala duwan. waa tahay marka maxaa is leedahay dhibaatooyinkaas aad sheegtay waa lagu yareyn karaa in la qaado? waxyaabo badan ayaa lagu yareyn karaa. weliba waqtigan hadda la joogo cabista tubaakada way sii darsatay, aad ayay usii darsatay. sababtana waxaa keenaya waxaa imaaday xanuunka COVID-19 oo asigaba markii hore saameyn ku hayay neef mareenka. dadkii isticmaalayay tubaakada way uga bateen dadka kale in la jiifiyo isbitaalada. waxyaabaha lagu yareyn karo ee u baahan tahay in la isticmaalo waxaa waaye in la dhaqan geliyo shuruucda caalamiga ah ee joojinta tubaakada. Soomaaliya oo kale khaasatan waa inay saxiixdaa shuruucdaas si loo ilaaliyo cabista tubaakada, da'da lagu cabayo iyo weliba goobaha lagu cabayo sidoo kale. Dr. Usaama, waxaad soo hadal qaaday COVID-19 marka maxaa xiriir ka dhaxayn kara dadka tubaakada caba ama sigaarka ama shiishada waxay ahaataba qiiqaas oo dhan iyo saameynta ay leedahay maadaama uu ahaa wax sanbabaha ku dhaca viruskan hadda jira? Cusmaan, waa mahadsan tahay. waqti xadarkan hadda la joogo dad badan oo adduunyada ayaa go'aansaday inay joojiyaan cabista tubaakada sababo la xiriira cilaaqaadka ka dhexeeya COVID-19 iyo cabista tubaakada. sidaa ognahaba cabista tubaakada qiiqeeda iyo mataqaanaa substanceska ama maadooyinka ku jira waxay abaaraan neef mareenka. COVID-19 wuxuu saameyn weyn ku leeyahay neef mareenka. taas ayaa keenaysa in dad badan ay hadda mataqaanaa go'aansadaan waqtigan ay kusoo beegaan inay mataqaanaa ka tagaan cabista tubaakada maadaama lala xiriiriyey bukaano badan oo isbitaalada la jiifiyey inay ahaayeen bukaanadii cabayay tubaakada ama waxyeelo hore ka lahay neef mareenka ama weliba qabay cudurrada raaga ama chronic illness wax loo yaqaan. markaan ka hadalno dhinaca Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ma jiraan wax looga hortagi karo in dadku aysan qabatimin sababtoo ah sidaan inta badan dhacdo wadamadan galbeedka aad ayaa loo xakameeyaa tubaakada soo galaysa waxa ku jira nikotiinka, balse xaggaas arrimo noocaas maxaa la qabtaa? Soomaaliya hadda inta la qabto way iska yar tahay, aad ay u yar tahay. maxaa yeelay weli waxaa aad u liita nidaamyada caafimaadka ah ee saacidi lahay ama taageeri lahay in hoos loo dhigo arrimahan. ugu horreysa in la sameeyo wacyigelin, ugu horreysa mawduucan inuu noqdo ay ku xigto mawduucan inuu noqdo mawduuc qaran oo looga hadlo goobaha mataqaanaa qaran ee caafimaadka, lagu daro shuruucda caafimaadka in la joojiyo tubaakada dadka ama cabista tubaakada la joojiyo, dadka isticmaalayana da'dooda la xadido, goobaha ama zoneska lagu cabayo inay noqdaan zones mataqaanaa cayiman oo la ogyahay. sidoo kalena Soomaaliya waa inay mataqaanaa hadda tallaabo u qaadaa inay dhaqan geliso shuruucda caalamiga ee controlka tubaakada. aad baad u mahadsan tahay Dr. Usaama oo qadka toos magaalada Muqdisho ugu jiray.